dadkii soo wacay oo dhan waa mahadsantiin. marka hore xaaladeyda ma fiicno. dadka qaar live-ka intaa ku jiray arkeen waa aragteen anigoo live ku jiro oo wax iska iibsanayo. hal mar waxaan ka warhernay ilmaha albaabkii soo garaaceen, gambaleel kala soo garaacay. waxa uu haysanay inuu ninkeyga uu yahay shaqada ka imaaday. and then ilmihii albaabka hoose haday u degteen inay furaan rabaan, albaabka uuse ka tuureysana gambaleelku way ka furi waayeen. sababtoo baryihii dambe dhan cabsiyaan qabnay, saas albaabkeena hoose xitaa mar walba se ka tuureynayna furaa gelinaynay. marka albaabka hal maraa lasoo garaacay. markaa hoos u deganay waxaa aragnay yacni ilmihii way degteen inay furaanay rabeen. alaa xaal warkaan igu dheeraysiinine booliis saayib fara badan anoo imaadeen, albaabkiina way soo jebiyeen. mar allaale markay albaabka soo jebiyeen hoos waxaa joogeen xitaa taliyar iyo canug kaleeto. taliyar xitaa lugta dhalaa ka gashay. albaabka ayagoo inta furaha ilmaha ka keenayeen way sugi waayeen, waa la furayaa suga. ilmihii oo dhan way argagaxeen. anna mar allaale markaa soo degto albaabkii oo la furo dhaay maxaa la furaabo, albaabka way soo galeen. albaabka hoose asidhan way soo jejebiyeen. and then anigana waxay sidii tuug oo kaleeto ama qof dambiila camal sidaana ii xirxireen gacmihayga oo dhan. darbigay iula riixeen, waxay igu xirxireen baasha. waxba ma fahansaneen wax la ii xirayo wax kaleeto. hal life-an ku jiray, taleefonkana way iga damiyeen. inta dadka aragtay in kalama aqaani. taleefonka labada taleefon baa la iga damiyey. darbiga igula qabteen, gacmaha beri ay igu xireen. gacanteedana hadda waa arkaysaan, tan kaleetana saas le waaye. and then waxaa u maleeyaa inaan qof aad dishay dhahooyaan. markii dambe waxaan arkay inay dhahayaan waa isdili rabtaa. waxaan ku dhaha anise isku dilayaa, maalintii life-a ku jiraa. taleefonkayga waa ujeedaan life-a ku jiraa, see isku dilayaa, waa isdili rabtaa. then english ay igula hadlayaan. waxaa la yaabin aan aad iyo aad ugula yaaba waxay tahay email qof usoo diray wuxuu dhahay waa isdili rabaa. aniga magacayga camal u isticmaalay. aniga ilmahayga waa isdili rabnaa ee naga soo gaara. waxay leeyihiin qofka emailka soo diray qof oo af jarmal si fiican u yaqaan u ahaa, yacni qof jarmal u ahaa. haddii marka emailka qof soo diray qof jarmal uu ahaa, sidee ani gacmaha igaga xirxireen oo ay u jeedaan in ani qof ajnabi aan ahay oo jarmalkayga siduu jarmalka dadka ahna marnaba una ahayn. saasay tahay gacmahaygaga xirxireen. saacadoo dhan waa xirxirnaa. guriga meel walba albaabada oo dhan way jebiyeen. qayb hoose anaga shaqo ku lehen xitaa way jejebiyeen. guriga alaabka keelaha meel walba way soo jejebiyeen. anigana saacad ku dhawaad gacmaha saan ugu xirnaa. waxaan ku dhaha war iga fura, gacmaha way xanuunayaane. qofi maqli ma lahan. marka hadda su-aasha waxaa waaye qofkana dulmay ma booliisaya mise qofka emailka soo diray. caawa albaabkeena oo dhan saasuu u jajaban yahay. yacni guri banaana inaa jiifno oo kale waxba ma dhaanto. ciddii guriga iska laheeda imaaday waa la isku dayaa inaa la sameeyo, laakiin albaabka waxa deer dhaluu ahaa isaga dhanna waa la jibiyay alwaaxiisa macnaa dhaladiisa. marka aadaa umahadsantiin inta isoo wacda sheekada. saas waaye waa dad inaa noolaada dhan badiidan oo dadka jarmalka oo cunsuriyiinta ah waaye. so beriyi dambe oo dhan waxa saasoo kaleeto emailo aniga naftirkii aan la kulmaay way jirtay. anin marka waa iska ignore garay sababtoo ah kor iyo hoos ba aniga cunsuriyin meel walba ma ideynayaan. so taas ula socda insha allah. wixii ilaahay kugu rido ka badan ma kugu dhacayaan. khayr badan aan idin rajaynaa.